بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض عافماتك هذه بان السلام عليكم. وأنا كون فرح سنة كسوة قريبين شركينا. وايو شرارك قار وحاري ماذا؟ إن أنا أقوم ككبسوه وحكي فائديسته وأنا باها هي هوش هاي قبطان. مركب ما أنت 10 كيلو كوبان أيام كفائديستي وإذا ما أنتر إنه شيء مشاهد أدنى وأتلي لذا كان هقاطته وحنحوشيها أبيلك أقدر يسي WHO هي عالم كيوم هيدا هذا شغله أو كنت هاجريا إن هؤلاء يهوون سوالان لم يجيك وادوك أو يحقوا ليهين إلا قد دوينيو oo laga hortago labada cudur ay sheegtay gaar ahaan ka kansarka fayraska ah oo caalamku naga caawiyo si loo hortago waa taageero waan codsanaya kalabaadena faqadarada ee dabar baan leenahay inaguna way barkeen ka soo baxara ay naan oran haweenkeena noo quudiya caalamku waxa la gaajay dumarku ka dhalan ilmaha aan caadi ahayn waa inagu ceeb dan habada Soomaaliya in haweenkeenu gaajo iyo nafaqo daro ilma aan caadi ahaan ku dhalaan waa ceeb adduunka loo geesto wax laga xamsado weey waana ceeb in wasaare haddana ay qaranka Soomaaliya waana ka hadli doona iyada inta waxaan ku dhaafayaa taageerada aan raaciyay adna labada mawduuc ee maanta faa'iiday marka taga jaamacadaha meelaha waxbarashada caafimaadka oo kale maalin walba waxaan ka qaataa waxoogaa 10 oo qaranka u dana waxaan ka mid yahay adaa ka shaqeeya nolosha dadka iyo horumarkooda 10 kale aan ka faa'iiday oo wasiirka caafimaadku halka ka yiri oo doonaya isaga inuu ka faa'iideysan wasiirku wuxuu yiri waxaan qabanaynaa shir waxa laga hadlayaa medical ethics akhlaaqda way naga xumaatay dhakhtaradii halkan marka waa laga tawan ka yarnahay waayo dhakhaatiirta iyo aqooyahankii waa meeshii akhlaaqda iyo ethics loo sii dooranayay marka haddii iyaga laga deeriyo wallahi xaalkeedu waa baralka aad halay nooga geejiyo idinkana waa ku ceeb in la yiraahdo dhakhaatiirtii iyo macallimiintii iyo eegas la barayaa iyo jaamacadihii waxaan islahaa markuu ethics ka soo qaaday inaan farta taagan doon wasiir qolada iyada siyaasiyiinta iyo xisbiyada u fur medical ethics caafimaad ethics bahda iyada siyaasadda mikrofoonka lagu faray bal haddii ethics mikrofoonka baro qofkan intuu mikrofoonka qaato baalka mobilka isku sawiro wax walo laga xishoodo oo dhaqanku diido oo diintu duudo oo caqligu diido ku hadlo habeenkii intuu muraadka daawado ku farxay ma arkaysa waxaan sameeyay haddaba ceebta adduunka wardu sameeyay war qolada iyada ma u baahan ethics qolooyinka jaamacadaha iyo medicalka iyo waa kaftabay saaray bal loo soo gurmada oo wixii ay sheegaysan iyo balgeer daweeyay lahaydeen albaabka dhowr jeer ma la furaa bal ninkan intuu cay iyo foolxumo iyo waxaan dhaqnaan ku hadlay istaawada ku faraxsan maxaad u malaynaysaa marka muxuu noqonayaa cudurada sheegaysay Allah noo saaro bahdiyada hadalka iyo siyaasadda qaabilsane bal laga warhaya hadda aad iska baaraysaa inta kadib waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa bahda caafimaadka dhamaantiinba shirkan in ay soo timaadeen idinkoo xirfado kala duwan ganacsi iyo dad maartay private business iyo wasaaradii inaad u gurbateen hawshiina aad caafimaadka u haysaan isugu timaadeen oo ka tashanaysan sida ummadiina loo daweeyaa sida loo daryeelaa aad iyo aad baan ku hambaleynayaa waan idinku garab galaynaa waan ku faraxsanahay waan idinku dhiirinayaa waxa kaloo doonayaa inaan idin qiro adna uur maahe ilaa inanta maanta baranaysaa kalkaalisada ama umulisada ama inanka baranaya kalkaale caafimaad ama first aid-ka inaan dhammaantiin hadday cid mujaahid tahay ama mujaahidiintii qof waloo caafimaad bartay mujaahid waa carabi eraygu wuxuu ka mid jahada fi sabiilillah iyo jahada fi maartay adduunkaba barkadal ilaahay dagaalamisa wax ummadda iyo diinta iyo qofka iyo dalka wanaagsan dagaalamisa marka hadday cid tahay dagaalamayso qof kasta oo dhakhtar adduunka halku doona ka joogo dalku doona ha joogo diintu doona ha haysto wuxuu u halgabayaa oo dagaalamayaa bini aadmiga waraagiisa caafimaadkiisa horumarkiisa marka xaq buu leeyahay magac kasta oo wanaagsan in la siiyo qofka caafimaad ka shaqeeya iyo ka macallinkiiba labadaba ismaaciilaya waa mudan yihiin
hamrida kadib oo idinku maanta xafladda awlaadiin waxaan soo dhaweynayaa dhammaan martinsharafta ka timid hay-adaha dalka ka shaqeeya gaar ahaan martinsharafta ka timid dowladda deegaanka soomaalida Ethiopia waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa sida wanaagsan ee aynu u wada shaqeyno jaarnimada waxaan ku faraxsanahay oon ku qadarinayaa dowladda deegaanka soomaalida ee jaarka nahay inay nabadda inagala shaqeeyaan oo horumarka inagala shaqeeyaan oo caafimaadka inagala shaqeeyaan oo si bini'aadnimo oo dhow oo walaaltinimo inoo shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa taasaanaynu ku horumaraynaa annagana intaa in leeg baa naga filanaysaa shacab iyo xukuumadba walaaltinimo nabad iskaashi wada shaqayn shar oo dhanna aynu ka wada hortagno khayr oo dhanna soo wada dhaweyno sidoo kale jaarkeenna oo dhan dhinac walba intaa kadib hambalyada iyo soo dhaweynta dee malaa aniga iga filamaysaa inaan caafimaad ka warrabo oon sheego caafimaadka iyo dhakhtareed dee idinka idiin sheegi maayo laakiin tu kale aan idiin sheego u baahan tihiin oo wada baahannahay dadka mutacalimiinta ah ee aad cilmiga u barta macallimiinta dhakhtarada injineerada abwaanada artist soo qaad dadka aad fikro dhamme hal aan isleeyahay malaa sax maaha bay qaataa intaa waqtigiisa wax kulmanaya bini'aadmiga horumarkiisa had iyo habeen wuu shaqaynaya nin baanu kabtananu saaxiib noo dhakhtara iga yar weyn laakiin aanu aad wada isaqaano markaa waxaanu isku qabsanay labadeeda shaqo dadkuna markay eegayaan labadiiba dee xuntii bay dhaqtaa labadiina waa cadho badantiidi waxbay nagu sheegaanoo laakiin anaa isaga yar dhaama dhakhtar ismaaciil baa la idhaha lafuhu kabaa mala waa taqaaniin inuu joogay kala mooyaane tu kale nagu xantaanoo labadiinoo geel jiraa tiraad anu geel isaga waan ku dhaama isaga anugu waan keerka magaalsana xogay marka waxaan isku qabsanay siyaasaddu waa wax xun warna garta kana waa imana waxaan tustaa waa maxay ana waxaan ku raahdaa horta dhakhtar haddii siyaasadda la waayo oo tala la waayo dadku ma jiraya haddii caafimaad la waayo yaa dadku miyuu jiraya maya haddii tala la waayo ka warramo haddii tala la waayo dhakhtarkii la heli maayo oo macallinkii la heli maayo oo nabaddii la heli maayo oo horumar iska daayo qof meelu seexda heli maayo meelu ku tukado haddii tala la waayo siyaasadduna waa taladii markaa dhakhtaradu rag iyo hablaba markay joogaan idhahda inaga daaya siyaasadda maxaa la sheegaya dhakhtarada haddii tala la waayo siyaasadda waayo hawshiinu cidlay ku dhacaysaa waxaad tidhahdaan markaa ku qoraysaan boorka qof waloo dhakhtaraba jaamacad college farmasi dhakhtar caafimaad waxay ahayd health policy maxaa policy u qaadaysa marka dhakhtarka mar ayadka qaranka u diidaysaa ay uga baxsanaysaa policy waa dhakhtarka hawshii caafimaadka isku qabanaysa tii qarankanu ka wada hadlaynaa marka waxoogaa waqti yar baan kaga qaadayaa amba tiina waa dhegeysta hadda taadin haystiidsiinida dalku maanta waa nabad ilaahay mahadii sanadkana roob badan buu ahaa nabad badan waa degan yahay 30 sano Soomaaliland marasay dheeraad muruqeeda adkaaday cadawgeeda waa ka adag tahay warwar ma qabto cid ilaahay boo ibn aadam oo waxyeelay kalaam waxa qaadi kara cadawgeedana maanta warwar kama qabto way jir dhigaysaa gudaheedana way isticmaashahay gudaheedana waa dal midaysan dimuqraadiya tala wadaag leh laakiin dadka qaarkii murankeena markay arkaan ay yiraahdaan waa meel Soomaaliland hal ceeb bay leedahay oo aanay af Soomaali dadka ku hadla ay kaga duwantii markay TV-da ka hadlayso ayaa la moodaa af aan dad haysan u miir qabin ay hadlayaan laakiin marka la eego wax qabadkeena inta Soomaalida inaga ugu wanaagsan iskaashana wax wada cuna kala caroonin tala midaysan la murankeenu ha xumaado iyo hadalkeena marka magaalaha muqdal gaarka ay dalka maanta dad badan baa waxay ka deereeyaan hadda wax baas ka sheega horta dawladda waxaan u samaysanay ee caalamku dawladaha u samaystay ee dawladda looga maarmi waayay waa inay mashaakilka xallido mashaakilka inay xallisaa dawladda loo samaystay gabigeedaba oo looga maarmi waayay oo siyaasadda oo yiri oo xisbiga loo furtay oo baarlamaan loo sameeyay oo madaxweyne loo sameeyay oo wasiir loo samaystay caalamku dhan ka badaysanay dal waliba maalin kasta waxa jira mashaakil la xallinayo dalka iska dhaaf inteena asbuuriyeen ku soo toosnay qoys caruur aabba hooyo walaal qoyska laftiisa aroor buu ka jira hooyadii inanteeda ugu yar oo maxad quraacdu la dahday baa isku laayaa buu ka dhacaa
dalka oo dhanna markaa mar walba wax jirta mushkilad xalinaya way ilaahay baa si adduunka u abuuray sharkiyo khayrkaas ka rabsado markaa waa in aan la diidin haddii aad maqasho halkaa hawl baa laga haya qof qaloocan baa jira koox qaloocan baa jiri karta cid baa sharciga jabinaysa mid baa shar wada dawladda u xilsaaran waxa ay qabato waxa kale dawladdu u xilsaaran tahay si sharka loo yareeyo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo dhaqaale loo doono oo caafimaad loo doono oo tacliin loo doono si ay u yaraato dhibaatadu markaa dawladda fadhuma yaala 24 saacadood ee maalin walba waxay ku fogan tahay hawsha marka soo dhawaado geeskan Afrika maanta aynu ku noolahay bal amuurta ilaahay caalamka oo dhan baa isku yimid oo wada danaynaya oo wada doonaya dawladii waaweynaa Mareykan China Ruush Turki Iran maxaan ku raasay Saudi ninkii ama dhaqaale ama xoog ama cilmi isku tuubayo geeska Afrika ku soo jeeda imaka uur maaha waa warigeedii Allaaheen markii isticmaalku dalka boobay meeshii loogu soo horeeyay ee adduunka oo isku herdiyay geeska Afrika baahan waayo ilaahay wuxuu ku abuuray halkan oo inagu abuuray ka dhigay juqraafi aan meelaha adduunka ugu muhiimsan baddaacas waxa la sheegaa inay sanadkii maraan in ka badan 700 oo bilyan bucsharo qiimaheedu tahay oo Yurub iyo kala socoto bariga Aasiya marka dal kasta ilaa Mareykan ilaa China way saamaysaa meeshan ay deganahay noloshooda iyo dhaqaalooda waxa ku soo biiray dhaqaalaha dadku ay daafacanayeen ugu yimaadeen laba qodob oo kale geeska Afrika oo badiisa iyo barigiisaba inta geeska Afrika isku dhahdo barwaaqo badan laga daawanayo hadday tahay macdan hadday tahay shidaal hadday tahay badda oo dawlad wala xoog leh ama cilmi leh ama dhaqaale waliba ay doonayso inay wax ka hesho farsamo ka keentay waxa kale oo muhiim oo adduunka maanta waxa soo diyaarada iyo waxa soo maraakiiba iyo waxa soo dhaqaalaha nin waliba u ordayaana waxa weeye geeska Afrika nin waliba waxa ka doonaya inuu amnigiisa ka ilaashado waayo in alliya inta la sheego xaq jir ama laga baqo ama codada ka jiraana geeska Afrika ka jira nasiib darro iyadoo intaas oo barwaaqaale waxay noqotay geeska Afrika boqolkii sano u dambeeyay meelaha ugu dhib badan ee colaadu ka degi waayeen maanta hareereen bal yama waxa ka dhacay waxay noo jirtaa 300 kilomitir waxaan hayn 200 kilomitir bal Soomaaliya eeg waxa ka dhacay waa jaarkeena waa isu furanahay dhibaato inta leeg ma ka socota mar walba cid kasta si kasta ku baadiyay waxa ka oogan xasarad marka qolo waliba waxay isla xasaradeeda leh iska ilaali loolanka caalamiga ee maraya dawladaha ku jira geeska Afrika oo fara badan oo dhamaantood taag daran waana mid xoog maanta adduunka ay korshaan lahayn waxa ka noolaan kara oo ka nolosha mustaqbalkiisa kala dhex dabaalan kara ciidda isku tashata midaysan garanaysa si mawjadaha socda iyo adduunka isla socda halku dantiisa ka baarhay ka bixi lahaa qofkii dawladii isku tashata taladeeda midaysata khilaafkeeda hoosana yaraysa keeda guudna samaysa ayaa ka dabaalan kara ubadkoodana mustaqbal u dhigi karta sanadaha soo socda halbeega Soomaaliland halkee ka joogta ilaahay mahadi waxaan qabaa in meel aad iyo aad u wacan ka joogro ma ihi dadka mutashaayimka ah ee rajada xun ee waxa sirnahay u fiirsa hareeraheen oo dhan Djibouti Soomaaliya Ethiopia inta waa la ictiraafay inta waa la taageera inta baanka adduunka wax ka mahadaan inta waa la garab taagay Soomaaliland sodon sano ilaahay mooyee cidina ma ictiraafsana cidina wax ugu ogola waliba cadal xoog oo la dagaalamay hadana بفضل الله وحمده إلهي يوم دي صوام مدرسان يتشجعنا أي نكتاجر النور بس نكجنا وحرك عليه Soomaaliya gaar soo qaadaya laba dawlad baan wahayn lixkii midoobay ay ka duntay midnimada isdilay midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar u dhisatay 30 sanadood waa la ictiraafa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo quriye 140 milyan busi iska dhaaf jimcada qurba ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadda eeg
waxaas oo iyadoo la geliyay oo intaas oo garab haysata oo si walba loo taageeray maanta kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda madaxweynaha ahay qaranka u dhaxeeya dardaaranka qura bixinaya waxa weeye aanu doodno sharcigaan isku qabsanno dantaan isku qabsanno laakiin doodaada iyo murankaaga turxaan la'aan ee la'aan sheeg si gobonimo u heshay maalmahan waxaa maqlaysaa waxan badan oo xisbiyada ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharcigii baa la jabiyey raaci mayno go'aanka baarlamaanka soo baxay garabtii waa sharcigii baa laga booday madaxweynaha marorsaday gartaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax todo inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay yidhahdeen komishanka cusbana doorta la shaqayn mayno waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyey heshiiskii xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiin haddii qodobka ay guddooda waxay yidhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa damba laga dhigin haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anigu mana saxiixin qodobkaa mana ogi kuman inaan heshiinine oo ma jiraan leeyahay hadday hayaan ummadda hoos soo bandhigeen inaanu qodobkaa ku heshiiyen annaga ka daranay haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa doodaysa wax xun u sheeg qodobkaa laguma heshiiye waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto 7 xubnood cusub sababta loogu dari waayo kuwii hore yaan lagu soo celinaa waa sharci aanaan dhaaf karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaalla xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4aad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa markuu waqtigu ka dhammaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga qaranka wadani guddoomiyaheenii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida guurtida waa ixtiraamaynaa saxiixiisi waa la raacaya isagaa saxeexay mudane guddoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labadaa qodob hadday wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeriye baxa qodobka oo baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubintaa annagaa diidan haddaanu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu talo uu murarsadaa waa kalitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana labadaa qodob isu keeneeg sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxa soo jeedinaya guurtida mid waxa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wicid saddexana madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweedii midna arrintiisa ku faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyey wicid ku keenay waan gudbiyey guurta labadoodina waan gudbiyey saddexdii aniga ayran qotana waan ku daray waxa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo danteeda riixanaya ama biniaadmaan qaldamaba waxa iga dambeeya 2 isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo goloweynaha baarlamaanka oo 28 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodee wadani inay arrintaasi qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu codeeyey yeeli maynu wadani yidhi dictaatoriyadda ka weyn baarlamaanka yeeli maayo xaggee lagu arkay dee cabdiraxmaan yaa ka filayay inuu wanaagsan oo shibir ahay qolada jihadiyaaba taa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo guddoomiyey baarlamaanka ugu weynaa saxeexada ee dalka 10 sano sharciga u saxeexayay adoo guddoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurto sharafeed milkiye maamus ku leh
يبقى أرنتها كفير سياري ما يبقى برلمانك وارن أضيق واربردنا كجرنا كشعب وينو أنا وبرلمانك وحلوة وقولة هذا كاي يسوي عليه وقولة لبعض قضبة قرتها أيام عدينا أيه والميديا هذا كوا عدينا أيه وحنا كسر نقدنا وين وأركض وناه وحنا هاي المشروع يسوي راعوا أي مشروع احترام مركز الدود إنه عيدا نوري هاي دوري هاي ما إن لقى سيد هاي ميديا نقل دنيا ما نقل كنا موحي نقل دور فرح معها إلا سعادة واحد بدن بين السنة هاي هذا إنه كده أنا قارضة ديمقراطية أمريكا هذا الفرعانية وحلمت كأي إنجليز كيو ده هو كل شبينا ده يوم ديمقراطية واحد قاعدين ترى لبنا هاي سكوسدين هذا إنه تود كده هذا كاسين اللي جالس أبر هذا لو فرصة وديمقراطية واحد دوران سمعنا يا ورد بنهلو فرصة بكرة عيد على يرد وريبة ترى تاسع كلا يا هاي وحكسوا جبين يا سومال دور وري مايو دولة حمر كرديسان وأدوتين أنت ويرنا نقول قاعدة إلى مالتي لما عابد كده بربلا مشروع عيون سد كده لقى بالعابي وحيسوتها الدولة العلاقات عرض وشرنا من بكده عويس ومحاضو هرم مريسا وحكوا حكتي SDF صندوق الأوريجينال سبيشال فند فور سوماليلاند oo European-ku isku tageen oo Soomaaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray baaburan jirtay warqad bay qoreen anaga la ixtiraafsan yahay waa gobol laga mid ah cunaha la qabanay hadeen diidaanaha gudbinida waxa ku xigtay ECAW isku dayeen diyaaradana halka soo maray waxa kamid ah dawladda Soomaaliland soo dhaweysay ama marti qaadaan cilaaqaadka la jiro war waxa xubno gacanta lagu jira meega geeyay la soo dhaweysay oo soo dhaweysay waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen Soomaaliland gudaheeda ay hada sidee u degtaan meel Soomaaliland kamid waxa wax laga naxaa إن حزب ووطني ركمل أمانة نسبة تاجنا كردوا العام حمر ما أنت وربطوا حسب سواء أمان نجا مدن مسائل اللي يسكع عليه الودي يجروا عدل وكل هذا وقت بروح إنه كقدر يرنا نقل كفرمات ولا بدي مدحونا كل حراية إيربورت ما أنت حمر كبر شيء يسقوا أور حكومين ما شاء الله هذاين في الصومالية ولا يلا بدي مدحونا يقول حي حتى نقل الصومالية ما هسكر في سياسته كقال مير كود بتحصل ما نرعنا وحيلتها ملها قارفود أنهم صنوا ويانا كل عدوين دولك سان كدكتورانو waxaan ka rajeeyaa ku daraya aqoonyahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata hadii kala tacabkiru khasaar noqonaya taasoo ku badan Soomaaliland waxaan ku hambalyeeyaa ganacsigeeda madax dhaqameedkeeda culimadeeda ardaygeeda haweenkeeda reer miyigeeda kabada ka karumaysta midnimada iyo difaaca iyo adkaysiga gobonimadooda iyo qarannimadooda sida aadna ay naftooda u horayaan ayaan aad ugu hambalyeeyaa Soomaaliland ha noolaato midnimo iyo horumar baan ku jeenayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.